madaxda waan irta waxaan ku yiri maxaa inagu qasbay in aad ka waantoobi weysaan oo ka aqleysan weydaan xabashida waxay inagu ciyaarayso wuxuu Soomaaliya arag wiir Soomaaliya waxay noo geliyay Soomaaliya kasta inay dhibayso markii hore reer geysana dhibi jiray hadda nin kastoo dhan waan ugu tartamaya oo maxay ahayd galmudug ku joogay iyo ku dawladda centraalka ayaa ku tartamayaan qalbi dhagax mid kasta inuu wajax xabashi ka yaraasado marka Soomaaliya ma jirto u ninkaas waa mid loogu talagalay mid ayade waxaan ku tusayaa qalbi dhagax markii laga qaaday meesha oo la jajabiyay oo la dilay oo wadankii uu soo halgamay oo intaas oo jeer u dhaawacmay waxa lagu sameeyay la silciyay xagga markii la geeyay wadankaada imaatay baa la yiri meel fiican baa la dajiyay dhakhtar daawo xiro dhan baa la siiyay waxa loo tusahayaa annaga ka xigna Soomaalida kale ilaa Soomaaliya la kala qaybiyo oo qabiil loo kala qaybiyo laga maadkaan karo ingiriiska baa saamay maxay talyaaniga baa saamay faransiiska baa saamay hatta Ethiopianka way sameeyaan hal islaas uu sameeyay marka hore oo markay oranayaan maxay u shaada ninka u dhiiban karta ka qaadan karta ayaa loo dhiibtaa oo ingiriiska uu yiri mas ingiriiska doorta mas maxay la doorta waxay dhaheen inta lacag si hoosta ka galaysa diinta oo dhanba odayaasha ay dhaheen u shaada ninka ka qaadan karta loo dhiibtaa muhiimadaan ku soo wado waxaa la sheegay maalin dhaweytanin oo la faha oo qabteen qoliyahan Hargeysa ay qabteen hadda koor isagoo lugaha laga soo xiran gacmaha ka xiran la soo dilay soo baabiya ayaa loo keenay oo indhaha ka xiran tago jaala markii saa lagu soo dibay xabashii saraakiisha ahayn ee ku qayliyeen nimanka keeneen ayda ka furan si degdeg ah oo furayeen maxaa soo yeeshay markii laga furfuray wuxuu dhanba lacag fara badan waa loo diibay in kale af Soomaaliya qaanada waa lagu daray wadankaadi baa imaatay oo xor ah dib maanta ku dambaysa oo waxa doontana soo shopping soo samayso mar dama isku imaan ninkii sidii baa la yeelay markii dambe Arsabaa la geeyay hodal baa la dajiyay kor kulli way ka ilaashanay laakiin xor baa tahay baa wadankaadi imaatay macnaha waxa weeyaan Soomaalidii baa la kala dilayaa oo kuwa kana loo tusay inay cadow yihiin kuwa iyagana inay xabiib yihiin oo iyaga ay dadka ay maartay qaran ay isku yihiin walaal yihiin marka horta mu'amarada waa wax aad u ballaaran qisa aan hadda dhow ka sheekaysanay adiga ninka saasoo kale waa nafkaas gaalka oo intii lagu jijibiyay oo lagu garaacay galmudug maxay ahayd markii dambana soo sargaal imaaday galmudug operation maxay saraakiisha fulnays oo kamid yahay loo dhiibay xabashidii ma gartaalkii xabashida way qaaday way dhayday way baarisay dhaqaalana waa la sii sargaalna waa laga dhigay ka wadanka difaac cadow marka wuxuu arkay kaliya walaalihii Soomaalida oo galbeed maxay waxay ku sameeyeen baa kuwaana sheeko kala loo sheegay kuwa sheeko kala loo sheegay reer adiga marka dhalatay ilaa Soomaaliya marka la dhahay raas markay isku haysteen radin xaaji iyo reer Samatar hubka kuwana waysis xabashida waa dad hoos oo jif hoos isku ah 120 qof hal maalin iska dileen wadaga Soomaali inay ka waantowda taa iyada waa la leeyahay aqligoodii baa meesha noqday